بسم الله الرحمن الرحيم كلا وناكسن صاحب بيال إذل كيمبا كونا سو دوادا حبنتنا مرتي iyo maamaha waa mahmahdii ugu horeysay ee aan ku bilaabayno xubinteena oo joogta ahaan doonta hadii ee baydmo waa mahmah facweyn oo kamid ah foolhoraadka mahmahyada Soomaaliyeed sida goordhowba aad ka markici doontaan waa mahmah leh miisaan iyo qoto dheer waa mahmah xambaarsan xikmad culus waa mahmah aan hubo in aad ka heli doontaan waxna ka faa'iideysan doontaan waa mahmahda tiraahda rag waxa ugu liita nin hadduu jooga aan la tirin hadduu tagayana aan la celin hadduu maqan yahayna aan la tabin inkastoo mahmahdan ay garanayaan dad badan oo idin ka mid ah haddana waxa xaqiiqo ah in ay jirto dhalinyaro ay ku cusub tahay dad waaweyn oo laga yaabo in ay u hor leedahay dad badan oo aysan ku cusbayn laakiin aan fahmin ujeedadeeda rasmiga ah iyo kuwa ay dhici karto in su'uun ay u fasirteen hase yeeshee aan asiibin tilmaanteeda saxda ah haddaba innaga oo ka duulayna arrimahaas iyo kuwa kaleba ayay laga maarmaan nala noqotay in aan sharaxaad ka bixino tilmaamaheeda iyo micnaha laga maarmaanka ah ay leedahay marka hore aan idinku celiyo mahmahada rag waxa ugu liita nin hadduu jooga aan la tirin hadduu tagayana aan la celin hadduu maqan yahayna aan la tabin saaxiibayaal mahmahdu waxa ay ka hadlaysaa qiimaha iyo waxtarka laga shinsado ragga iyo meesha qofka lagu hungoobay ugu qoran yahay bulshadiisa runtiina yoolkeedu waa ninka aan laga helin hankii loo qabay iyo kaalintiisii waa ninka bulshadu tiraahdo hebel waa wax matare waa nin looga quustay in mar kaliyana laga helo hiil ho iyo cilmi iyo caqli ku doonaba ha ahaadee hadal wax ku ool ah oo lagu diirsado inuu mar un ku tiraabo qodobka koobaad nin isaga oo jooga aan la tirin waa nin maalin kaliyana aan lagula baqan culays jira sidaa darteed marka ay arrini cakiranto waa ninka aan marna ka mid noqon magacyada durbadii baa la isla sheego marka laga jawaabayo su'aasha ah rag allow yaa arrintan wax ka qaban kara oo maanta aan u irkana taasina waxa ay keentay in qofkaasi marba haddii xaalad jirta uusan waxba ka qabanayn haba yaraatee uu noqdo qof aan la tirsanayn ama aan ku xusnayn liiska dadka macnaha ula bulshada qodobka labaad waa nin haddii uu tagayo socdaal dheer iyo mid gaaban ku doonaba ha ahaadee aan marnaba bahdiiso ku dhegin oo aan la oran hebelow sina lagama maarmo sidaas daraaddeed naga tegin qodobka saddexaadna waa nin isaga oo maqan aan marna la oran allaylehe maanta waa maalintii loo baahsan jiray hebel oo isaga ayaa tanoo kale xallin jiray nasiib darrase wuu inaga maqan yahay ugu dambayna mahmahdani waxa ay tilmaamaysaa in ninka hadduu jooga aan waxtarka lahayn hadduu tagayana aan la ceshan oo aan la lahayn hebelow kaama maarane ha naga tegin hadduu maqan yahayna aan la oran walle hebel baa maqane culayskan mar hore ayuuna weydaaran lahaa oo si sahlan ayuu u xallin lahaa sidaa darteedna aan maqnaantiisa lagu xasuusan intaas iyo tilmaamo kale oo badan oo qayb ka ah qiimaha iyo waxtarka laga doonayo wiil kasta ayay mahmahdani kulmisay oo waxa ay tiri rag waxa ugu liita nin isagoo jooga aan la tirin isagoo tagayana aan la celin isagoo maqanna aan la tabin aad ayaan u filayaa in aad ka bogateen mahmahdan aadna fahamteen xigmadda ay xambaarsan tahay iyo ujeedadeeda intaas ayaan ku hakinaynaa xubinteenna murti iyo mahmah qaybteeda koowaad haddii alla idmo waa inoo berrito hadahan oo kale xubinteenna murti iyo mahmah oo aan idinku soo bandhigi doono xigmad kale waad ku mahadsantihiin wakhtigiina qaaliga ah si aad ula socoto oo aysan kuu dhaafin xubnaha kale ee soo socda fadlan taabo
halka ay ku qoran tahay subscribe.